Somalidu kade daratay kabaxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Somalidu kade daratay kabaxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Habil ba kalageyay inka sarila wakan nabadori wakan isku kana wakan Habil ba kalageyay inka sarila wakan nabadori wakan isku kana wakan yo karama kusarnaye karme yanaqo karim kambarina yo karama kusarnaye karme yanaqo kabebe iyana saylada kalwiya berey koruqada saylici kuwayna kullana kudarso shoobana kalmayso Adiye Elohia aha Adiye Elohia aha Wasaka kuwayli bakar hakardamo erigamo hakahlo wiwila kusahib dankala kubola wareegtay kukalla Adiye Elohia aha Adiye Elohia aha karama kusarnaye karme yanaqo karim kambarina yo karama kusarnaye karme yanaqo kabebe iyara saylada kalwiya berey koruqada saylici kuwayna kullana kudarso shoobana kalmayso Adiye Elohia aha Adiye Elohia aha Wasaka kulayli bakar hakardamo erigamo hakahlo wilwila kusahib dankala kuboda wareegtay kukalla Adiye Elohia aha Adiye Elohia aha karama kusarnaye karme yanaqo karim kambarina yo karama kusarnaye karme yanaqo karim kambarina yo karama kusarnaye karme yanaqo Bismillahirrahmanirrahim dhammaantiinba habeen wanaagsan oo ka soo qaybgal wanaagsan xafladan caawa aan ku soo dhaweynayno hogaamiyaha xisbiga midnimo qaran walaalkeen oo caawan marti noogu ah Cabdinuur Sheekh Maxamed oo hore uga soo noqday wasiirka waxbarashada dawladda Soomaaliya caawana halkaan la joogo marti noogu ah casharafta aan ugu sameynay haddaan nahay community-ga magaalada Toronto ee dalka Canada waxaan jecelnahay barnaamijka intaana bilaaban oo aan wax badan aan sii faahfaahin in aan ku bilaabano sida caadadu noo tahay haddaan nahay dad muslima aayadaha qur-aanka kariimka waxaan noo akhrin doonaa maxamed xaashi فليفضل والله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. الله nagu anfaco aayadaha quraanka asagana jazaa Allah ka siiyo waa hagaag waxaan guda galaynaa barnaamijkeena caawa aan halkaan iskugu nimaanay soo dhaweyntii iyo casharaftii aan u sameynay mudane Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah gudoomiyaha xisbiga mid qaran oo halka ka muuqata loogada oo caawa marti noogu ah waxaan leeyahay Cabdinuur Dr. Cabdinuur walaal ku soo dhawow oo horena uga soo noqday dawladihii hore Soomaaliya wasiirka waxbarashada oo aan aaminsanahay inay ahayd marka loo dhiibay booska inuu ahaa boos oo qalmo waayo takhasuskiisa wuxuu yahay waxbarashada education PhD ku sameeyay marka waxaan leeyahay horta hogaamiye haddaan ammaan waxa leeyahay aqoon baa uu leedahay oo saaxiibkaayo oo walaalka meel ku kula soo koray isku xaafad ka timaadeen laakiin ragga aan aqaanay maanta siyaasadaha u ordahaya in badan baan ka aqaanaa Axmed ahaan magaca ilaahay horta noo taagan saaxiibada inta horfadhidan u sheegaya waxa weeye caaw hadii la weydiin lahaa asaan soo qaban lahaa haduusan ka koowaad noqon kan labaad uu noqon lahaa ragga aan aqaan aniga aqoonta u leeyahay mana iga aha aqoon Cabdinuur waa qaan Dr. Cabdinuur aan qaanay waxa weeye marka laga hadlaayo wardanimad shakhsiyad iyo dun wanaagsan qofku ku leeyahay annaka Soomaali haddaan nahay waqtigan xaadirka aan joogno siyaasiyiinteena majority intooda badan ee haddana horboodahaya kulay aniga artayda sida ii muuqata inkastoo kulligood aan wada garanayn laakiin ma aha dad dantooda ay fiican tahay ee daacad ka tahay wuxuu uu noo leeyahay laakiin Cabdi waa ku hurdaa waa hubaa 100% that's why aniga xisbi ma ka tirsanayn meelna kuma jirin weligeena ma taageerin laakiin maalintii ugu horreysay aan maqlay hadalka oo saaxiibkay Xaaji Cabdi Xuseen oo Mareykan jooga ii soo sheegay waxaan lambar 1 baan ahay sakan xitaa ma noqonayo ma santiisa ay dhageysteen raalliga ahaada haddana waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Xildhibaan Faysal Xuseen. Assalaamu calaykum habeen wacan oo wanaagsan Axmed Mire aad baad u mahadsan tahay walaalkeen Axmed runtii waa nin aad iyo aad u wanaagsan weeyaan nin waxa weeyaan aad iyo aad maaragtay community-ga u dadaala oo maaragtay dhaqankeena iyo afkeenana u heelan maalin walbaba waad ku mahadsan tahay Axmed shaqada aad noo haysid runtii caaw waxaa halkan inoo martiya ma maqlaysaan codkaygi miya hadda way maqlaysaan asalaamu calaykum mudanayaal iyo marwooyin waxaan ka hadlayay mar dhoweed Axmed Mire oo runtii ah nin aad iyo aad maaragtay u dadaala oo community-geena runtii afka Soomaaligana mar walba inuu maaragtay idaacadaha si iska wax u qabsaa oo runtii ugu shaqeeyo taana mahad gaara ayaan uga celinaynaa maxaa yeelay afkeena uu sii dhimanayaa waxaa loo baahan yahay kor in loo qaado waxaa loo baahan yahay in loo hiiliyo runtii caawa halkan waxaa marti inoogu ah walaalkeen Cabdinuur waa nin siyaasiya waa nin waa nin shaqo badan maaragtay Soomaaliya ka soo qabtay haddana doonaya inuu ma garanaysay wax weynna oo uu ka qabto runtiina anigu mar walbaba dadka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee u heelan in la eg Soomaaliya ka jira inay wax ka qabtaan horta sharaf gaar inaga mudan yihiin waxaana loo baahan yahay in la taageero runtiina inagu dawladdeena Canada iyo tan laftigeeda Ontario-na waxa weeyaan shaqooyinkii looga baahnaa inay dadka Soomaaliyeed garab istaagaan siyaasiyiinta Soomaaliya inay la shaqeeyaan oo ay ka gabeen taana waxa keenaysa baraarujin la'aanta bulshadeena iyo waajibaadka ina saaran haddaynu nahay Somali Canadians
anigu waxaan hadda sanad iyo badh xubin ka ahay baarlamaanka gobolkan Ontario. baarlamaankaas mar qura afka Soomaaliga wax quseeya ama wax ka hadlay dhaqankeena oo ama bill ah ama act ah oo horta la soo hordhigay ma uu jiro. minaha waxaynu nahay maqana jooge. taana waxa loo baahan yahay inaynu wax ka bedelno. waxaan imanka aan doonayaa wiigaga soo socda inaan baarlamaanka aan hordhigo Somali Heritage Week. waxaan doonaynaa inaan ku dhawaaqno proclaim gareyno Soomaalida loo dabaaldego contributionka aynu gelinay gobolkan iyo wadankan. waxaynu leenahay scientistayaal baynu leenahay, waxaan leenahay dhaqaatiir, dad badan oo maalin iyo habeen u hiilan siday u badbaadin lahaayeen dadka gobolkan ku nool. laakiin caruurteenu ma ay yaqaanaan. runtiina intii aan siyaasadda ku jiray hadda ciyaalkeena yaryar ee halkan ku dhashay self esteemkoodu aad iyo aad ayuu u hooseeyaa. maxaa yeelay Soomaalinimadooda waxa weeyaan waxay u arkaan wax ah negative ah. marka waa inaan ka dhignaa mid positive ah. marka inaynu highlight gareyno wanaaga, inaan highlight gareyno contributionka weyn ee aynu samaynayno. marka June 25keeda ilaa iyo July 1keeda waxa aan doonaynaa inay noqoto Somali Heritage Week. taas oo marka u gogol xaari doonta in dhaqankeena, afkeena iyo heritagekeena uu ka mid noqdo qowmiyadaha kale sidooda ee gobolkan degan. marka dadka inaga tirsan ee fikiri kara creativity fara badan lana waxay u furaysaa wadooyin badan oo ay markaa ku soo bandhigi karayaan dhaqankooda, heritagekooda iyo waxyaabaha gaarka inoo ah haddaynu nahay qowmiyadda Soomaaliyeed ee ku baahsan geeska Afrika. marka halkan waxa weeyaan taasna waa tii ugu horeysay noqon doontaa marka aan arintaasna aan ku guuleysano. marka idinka maxaa idinka baahan yahay? marka waxa aynu degannahay gobolkan meelo kala gadan. marka xildhibaano gobolka ka tirsan ayaad leedihiin. marka aan table garay waxaan doonayaa inaad warqado u qortaan, inaad petitionska aad saxiixdaan, in la dareemo inaad baahi u qabtaan in Somali Heritage Week uu noqdo mid ka dhaqangala gobolka Ontario. waa mahadsan yahay xildhibaan Faysal Xasan. waxaan ku sii tilaabsanaynaa hadalladeennii iyo waxaynu waa dhammaysanaynaa insha Allah. waxa kale oo noo dhiman hadda ma jirto. intii la oran lahaa waa la sooyay. waxaan u dhigtaagaynaa, aan sugaynaa, aan u fadhinaana waxa weeye wixii halkan u nimid soo dhaweyntii Dr. Cabdinuur, mudane Cabdinuur. asana waxaan u yeerayaa asaga wixii meesha uu naga oran lahaa ama na fari lahaa ama nagu guwaabin lahaana asaga ayuu taala. mudane Dr. Cabdinuur walaal ku soo dhaw. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا ليال أبا وما سنتين عاوة إن وقتي إن قالي هذا نسيسان ولو إنه يسمح حركة سوقيب قلت أتكسر قيب قشين برنامج كان aad waqtigiina qaaliga aad u soo dhaafteen. runtii farxad weyn bay gelinaysaa in dadka meesha ka muuqda ay u badan yihiin haweenkuna ay yihiin lafdhabarka ummadda Soomaaliyeed, lafdhabarka Toronto, lafdhabarka meel kasta oo la tago. marka alxamdulillahi rabbil caalamiin. runtii waa mahad ilaahay in maaragtay hogaanka dalka iyo rabitaanka mustaqbalka ummadda ee haweenka Soomaaliya ugu horeeyaan. magaalada aan joognaa waa Toronto, meeshaan ka warrameynana waa Soomaaliya. marka waxaa igu soo dhacday anigoo jaamacadda ku jira Ohio University meel la yiraahdo Athens ku taal ayaa maalin nin from Ghana oo jaamacadda dhameeyay ayaa wuxuu rabay inuu soo sharaxo madaxweynaha dalka Ghana.
marka wuxuu yiri kaanan u socdaa waa safraya madaxweynenimo isu sharxaya laakiin waxaan rabaa yiri inaan dadka jaamacadda joogo bal aan u sheego inaan doorasho u socdo marka xaflad hal ii sameeyo marka waxa la wixii dhalinyaro Afrikaan ah isu yimid gaaladii dhan baa loo yeeray ninkii baa meesha ka hadlay marka gaalada meesha baris waxay leeyihiin ninkan muxuu yahay ninkan waa Gaaneys waaye wuxuu rabaa madaxweyne Gaane inuu isu sharaxo maxaa dhiga Ohio hadduu rabo inuu madaxweyne Gaane isu sharaxo marka su'aasha isweydiinaysa waxay tahay Toronto iyo nin raba inuu doorasho Soomaaliya galo maxaa iska galay laakiin Toronto waxaa degan lafdhabarkii dalka waxaa degan dadka umurugooda dalka waxaa degan dadka dalka masruufaad degan waxaa degan dadka dalka umurugooda degan marka waxaan isleeyahay meel walba Soomaaliya ay degan tahay ama Toronto ha ahaato ama Mareykan ha ahaato ama South Africa ha ahaato meel walba Soomaaliya ay joogto qayb bay ka yihiin horumarka iyo dadaalka baaragtay hor socodka Soomaaliyeed waxayna ka bilaabanaysaa socodka rabitaanka Soomaaliya dadka degan diasporaha oo runtii lafdhabarka horumarka Soomaaliya marka waan ku faraxsanahay caawa inaan Toronto ku soo laabto runtii dadaalka dhaqdhaqaaqa arrimaha siyaasadda ee aan ka bilaabay Soomaaliya barnaamij la dhihi jiray inaad maqasheen nin kale ma aqaanay Stand Up for Somalia wuxuu ka bilowday Toronto Ontario halkaan uu ka bilowday marka waxaan isleeyahay Toronto waa meel dad rabitaan raba jacayl dalka uu ku jiro waxayna u badan yihiin dad aan saaxiibanahan isku xaafada ka nimid iyo daris soo wada hayn iyo isjecelnahay oo walaalaha Axmed Miro uu ka mid yahay oo maaragtay runtii qiimo iyo qaayo ku leh community-gan oo muujinaysa diversity-ga Soomaaliya dadku isjecelkooda isku xaafada oo saaxiibo oo soo wada koray oo is wada yaqaano inay runtii ay istaageerayaan waxay ka mid tahay waxyaabaha aan u baahannahay Soomaaliya in laga gudbo qabyaaladda loo gudbo diversity iyo unity iyo horumar iyo wax wada qabsi runtii xildhibaanku waa uu ka hadlay in hogaanka dalku uu u baahan yahay inuu noqdo hogaan shacabka oo dhan ay maaragtay u hiigsadaan oo ay jecel yihiin oo ay wax la qaban karaan oo ay taageeri karaan marka waa inaan ka baxnaa qabyaaladda oo aan u baxnaa maxaa la yiraahdaa unity iyo wax wada qabad iyo horumar inaan gaarno runtii walaalayaal waxaan isra caawa dadka ka farxiyo wax badan oo maaragtay wanaaga oo muujinaya joy iyo happiness iyo maaragtay rajo iyo hope muujinaya dadka u sheeg laakiin markaad fiiriso xaaladda siyaasadda Soomaaliya markaad fiiriso xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya markaad fiiriso xaaladda geeska Afrika iyo waxa uu xildhibaanku uu ka sheegay yani dhibaatooyinka ka socda runtii waxaad isleedahay mustaqbalka dhow ee Soomaaliya ku soo socdo Soomaaliya xaalad adag baa ku soo fool leh oo haddaanay gacmaha isqabsanin oo haddaanay wada tashan oo haddaanay samaysan hogaan midaysan runtii adduunku aan ka noqon doono sida ay ku yihiin dad badan oo maaragtay adduunka ku firarsan oo aan dawlad lahayn oo qoomiyada laakiin meel ay degaan iyo calan ay hoos taagan yihiin iyo dal ay u hoydaan aysan lahayn runtiina waa nasiib darro iyadoo la joogo qarniga 21aad in dalkeena oo gacanteena ku jira oo gacanteena ka baxo marka mar rabo rajo xumo inaan muujiyo laakiin waxaan rabaa inaan dareenkiina caawa aan xoga yar taabto in soo kiciyo oo maxaa jira haddii aad la socotaan 1884 dawladaha qarbiga iyo Yurub ayagoo raadinaya khayraad iyo wax kala raadinayo ayaa waxay ku bilaabeen wax la yiraahdo scramble for Africa Afrika yimaadeen dalal bay qabsadeen dawlado ay qabsadeen meel badan bay tageen waxa bilaawday wax la yiraahdo colonialism waxa la raadinayay waxay ahayd dad la xukumo iyo khayraad la baxo iyo ummad maaragtay la iska maamulo marmarka qaarkood waxa isleedahay oo dadkeena xagee jireen barigaas oo xagee ku maqnaayeen oo maxaa ku dhacay oo maxay isaga dhihi waayeen oo maaragtay runtii markaad fiiriso Maxamed Cabdulla Xasan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo dadkii noociisa ahaa ee dagaalami jiray runtii waxay dad oo fikirkooda iyo dareenkooda uu maaragtay ka horeeyay shacabka intiisa kale oo diidanaa in qof ajnabi oo kula mid oo just kalarkiisu uu ka duwan yahay inuu ku yimaado dalka uu kugu yimaado kugu adoonsado canshuur ka qaado kugu xukumo uu istaagay annagoo heeriyadaas iska tuurnay
konton sano dowlad soo ahayn 60 sano ay hadda marayso 60 guuradii qaranka Soomaaliyeed ee marayso waxaa nasiib darra haddana inuu socdo scramble for Africa cusub oo new generation ah oo geeska Afrika markaa fiiriso waa meesha ugu muhiimsan adduunka oo lagu dirirayo Mareykan baa jooga Chinese baa jooga Turkey baa jooga Japanese baa jooga Ruush baa imaanaya Carabaa joogta يعني قولا كما قال مرها إثيوبيا جوكتا كينيا جوكتا مال والبابا ورابع ربع إنه صوماليا عنو أي تاجن صومالي دينا أي قاس كم مقد يجي نوال كم مغيه أو ياكم مقد أو حال ربع فردي بربرين لقاته أو حال ربع تيكس ما يلقاته oo waxa la rabaa tii marka la qaato oo waxa la rabaa tii baraawe la qaato oo waxa la rabaa in laga sameeyo maaragtay xerooyin military oo waxa la rabaa askartoodii inay meel ku tababartaan ay helaan oo waxa la rabaa in hubka adduunka ugu dambeeyay meesha lagu duuro oo yaani ciidamada qarbiga iyo Arab iyo Turki iyo qolo walba oo ku hardamaysa geeska Afrika la sheegayna waa kii waa Djibouti waa Soomaaliya iyo Somaliland iyo intaas xabtaas radsiga iyo maaragtay Horn of Africa oo yala dil garayna cid alla cidii dhahaysa aniga meeshan xukuma oo adigana iska ilaalinaysaa adiga waxa iska ilaalinaysaa ninka kale oo dariskaaga oo ku diidan inaad adu meeshaada maamulato aniga marka ma ila dil garaynaysaa diyaar ma ii saxiixaysaa diyaar oo maxaa saxiixaysaa khayraadkii badda kii dhulka kii furdadaha kii dekadaha kii kan walba qolo walba saxiix baa la soo taagantahay oo adiga maxaa mustaqbal ku ah aniga hadda waxaan mashquul ku ahay ninkan inuu soo waxba iga qaadan gaalow adiga maba ku jeedaba ma ku aragteen internetka labo sagaaro oo diriraysa oo geesaha isla galay ma aragteen oo ayagoo geesaha isku haayo oo diriraayo oo libax meel dheer intuu ka soo arko uu ku soo cararaayo iyagoo isku dhagan oo geesaha iskula jira ayuu mid la boodaya exactly waa waxa ka socda maanta Soomaaliya Mareykan muxuu rabaa oo ka rabaa Soomaaliya I don't know Ruush muxuu ka rabaa Soomaaliya I don't know China maxay ka rabtaa Soomaaliya I don't know ma weydiin kartaa hadda bari waxa jir la isweydiin jiro la dhijir waryaa siyaasadaada ku aadan Soomaaliya ii sheeg adoo iyadoo qoran ii sheeg soo caday adiga maxaad iga rabtaa soo caday miiska soo saar laakiin qolo walba mugdi bay rabtaa inay ku golo shirto mugdi bay rabtaa inay diil kula geysato adigina waxa ku mashquul tahay war aniga kana maqadiyaan ka taaganahay mana Ruush iyo Mareykan iyo inay yimaadaan iyo aan diyaar u ah marka taas maxay keenaysaa walaalayaal in dalkeenni iyo khayraadkeenni ay ku baxaan anagoo isu jeedno oo ninka kale uu leeyahay soo kaaga hormarin adiga sii bix maxay u baahan tahay marka taas waxay u baahan tahay siyaasad biseel leh waxay u baahan tahay isu tanazulaad waxay u baahan tahay Allah ka cabsi waxay u baahan tahay hoggaan vision long term vision laho dhahaya war adigana waad gaajeysan tahay anna waa gaajeysanah dalkaana khayraadkiisa waa ka buuxa wuu naga badan yahay inta Ilaahay ka cabsano is walaalaysano war dalkan aan wada dhaqano oo Soomaaliya waxa idin weydiinaya Canada ma qofaad ilmaadirtiina xukuma ma qofaad istiqaanaan oo caawa in abaalkaaga haya xukuma laakiin nabad baa ku haysata Soomaa maqaayada nabad ku joogtaa gurigaaga nabad baa ku tagtaa waxa noo daran waxa ku daran waxa noo wada daran waxay tahay dawlad shaqaynaysa oo reerkeena iyo dadkeena iyo xoolaheena ay maartay ku amaan helayaan marka walaalayaal walwalkaas waa mid guud oo na haysta oo dawlad xumadu waxay keenaysaa inay ka timaado dalla'aan oo maxaa loo baahan yahay khayraadkaaga bensiina loo baahan yahay oo shirkadihii adduunka oo dhan ay leeyihiin aan qayb ka helno oo yaa qaybinaya shirkadaasi wax u qaybinaya qoladii haysataba oo hawshaasi ku shaqo leh waa la dilgaraynaynaa ama dawlad goboleed ha ahaato ama dawlad guud ha ahaato ama dawlad deris ha ahaato we don't care idinku isqaybiya annagu sabayso imaan karnaa waa aragteen daraato Somaliland iyo Soomaaliya markii la yiri waa la soo imaanaya waa la heshiinaya waxa qayla ka dhacay waad baqlaysay
oo maxaa keenay laba qof oo Soomaali ah oo ummad Soomaaliyeed u taliya inay iyaga gaar intay u heshiiyaan ay u wada hadlaan ay isu tanasulaan ay isu yimaadaan ay wada hadlaan maxaa u diiday maxaa keenay in qof kale oo wadan dariskaaga ah oo dalaal intuu ku noqdo garabka ku qabto uu ku yiraahdo walaalkaa ku geynaya walaalkan uu yiraahdo adiga way iman kartaa laakiin kaas ima soo wadi kartid waa nasiib darro marka walaalayaal taas waa tii guud ee xaaladda Soomaaliya oo sidee looga bixi karaa war Cabdi Nuur haa hadda waxaas waa wada ognahay sidee looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in Soomaalidu ay ka baxdo in adeerkay iyo qabiilkay iyo hebel intay ka baxdo oo war qofka aad isleedahay fikirkeeda iyo taladeeda iyo aqligeeda iyo diinteeda iyo wanaageeda waa leeyahay dalkaas meel gaarsiin kara in la raadiyo qofkaasuna uusan isagu isbidin inuu yahay waxa gaaladu u taqaan Mr. No All hal qof oo aqoon u leh dawlad sida loo maamulo ma jiro oo waxaan u baahanahay walaashay hebel halkan fadhida waxaan u baahanahay walaalkii halkan fadhiya waxaan u baahanahay hebel waxaan u baahanahay qof alla qofkii Soomaaliya horumarkeeda keeni karaan u baahanahay inaan isku soo hareeriyo oo keeni kara adiga inaad istiraahdo Alle Cabdullah kaligiisa ma Alle Cabdullah intaas ay ag fadhido tala ma seegana Alle meeshay tagaan howl bay ka qaban karaan Alle hawshaan ma aragtay way soo dhameeyaan laakiin hadda aanu kaligay socdo maxaa dhacaya wax walbana aan iraahdo aniga dhameey bahash oo dalka intiisa kalena yeesa waxbay ugu qabsan marka criticism iga maaha waxay ka tahay xaaladihii bariyahan aan soo marin ayaa waxay keentay in dawladnimadiiba ay noqoto koox gaar ah ama shakhsi gaar ah ama laba qof oo saaxiib ah inay dal dhan oo xoolihiisa iyo maamulkiisa iyo wixiisa annaga iyo in ka badanba ay u furan tahay in maaragtay laga leexiyo marka walaalayaal sida walaalkii Axmed Mare bootaan oo idin sheegay waxaan muddo ku soo jiray barnaamijka in Soomaaliya inuu isbedel ka dhaco xisbi maan sameynay anagoo koox ah oo isku dhafan oo Soomaali ah la yiraahdo mid qaran oo ah midnimada midowga qaranka Soomaaliyeed oo ujeedadiisu ay tahay in la yimaado fikir dheer oo mustaqbalka ka fikiraya war Soomaali sidee la isugu hayaa war Soomaali sidee loo walaaleeyaa war sidee dawladahan dariska naga badan la isaga ilaaliyaa war 80 milyan 90 milyan oo Ethiopian ba dariskeena ah oo cadow soo jireena la ahaa daris aan noqon karno wada shaqeyn karno laakiin maslaxadeena ay kala duwan tahay oo Kenya tibaadigan oo dariskeena ah oo dad aan daris soo wada ahayn ah laakiin maslaxadooda wata anagana teena aan wadano war sideen u heli karnaa in Puntland iyo Xamar iyo Kismaayo iyo Hargeysa ay walaaloobaan oo ay mid uga soo wada jeestaan geeska Afrika intaana la gaarin ruush in la iska celiyo iyo Shiina inta la iska celiyo war dadkan oo 5 milyan ah oo 10 milyan ah sidee loo walaalayaa walaalayaal xaaladda maanta ku jirno waa xaalad aad u cakiran siyaasadda Soomaaliya marka fiiriso dawladda federaalka ee Soomaaliya waa dawlad aan isleeyahay haddii ay heli lahayd arrimahan aan ka sheekaynayo wax badan baa u suuroobi lahaa oo xukuumaddu waa xukuumad ku timid dastuurka qaranka ha fiicnaado ha xumaado maadaama adiga ku timid waa in dastuurka qaranka aad ilaalisaa waddankan waxaan ku wada joognaa waa constitution Soomaaliya waxaan ku wada joognaa waa dastuur hadduu halaysan yahay dariiqii loo mari lahaa oo lagu sixi lahaa in loo raaca dastuurka waxa lagu bedelaa dastuurka loo bedela ama sharci hadduu ka halaysan yahay waa in sharci laga bedelaa laakiin dawlad ama xukuumad ama shakhsi ma dhihi karo dastuurkan ma raacsanin oo maxaa marka hore ku dhaaratood u timid oo ku xukuntaa dalkan haddaadan dastuurka aad u raacsanin waa number 1 federalism dad badan oo Soomaaliya markay federaal maqlaan waa naxaan oo Soomaaliya haddaan naxaan waxaan soo baranay wax la yiraahdo unitary state waa maqlay caawa hadda inoo heesihii maaragtay kacaankiina loo qaaday Soomaalidu unitary state taqaana oo hal madaxweyne hal dawlad hal calan hal luqad halkan waxa maaragtay konton sano la soo waday laakiin hal kaliya ma shaqeynayo diversity also Canada hal dawlad ma hal shakhsi ma hal community ma wada yani haddaan language ku kala duwan nahay diverse nahay
haddaan qabaa'illaan nahay haddii dad kaloon asalka Soomaali ahayn nala degan yihiin waa iyaguna waa dawladda Soomaaliya ka mid yihiin yacni waxaan ku kala duwannahay waa in la sheegaa unitary state hadda ma lihin waxaan leenahay constitution federaali ah haddii wax ka hadlaysiin waa la sixi karaa constitutionka federaaliga maxaa ku qoran in Soomaaliya ay dawlad goboleedyo ay leedahay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku ay shuruuc ay ku kala duwan yihiin ay leeyihiin shuruucdaas la ilaaliyo dawladdan uu ka tirsan yahay xildhibaanku waa dawlad goboleed soo ma wasiirkan wuxuu ka tirsan yahay dawladda federaalka wasiir Axmed Xuseen dawladda federaalka ka tirsan yahay iyagoo garbaha isku dhufanay ma arkaysid ma aragtaan iyagoo garbaha isku dhufanay dawladda in halkan iyo halkan dabcan states rights iyo مثلا Mareykanka oo kale waxaa jira states rights iyo federal rights waa la isku qabsadaa laakiin constitutional courts baa la tagaa oo la leeyahay dawladda federaalka arrimahan ay naga soo faragashatay waa in maaragtay yani constitutional court wax la samaystay oo aan idaacadaha iyo maaragtay beelaha kale lagu dirin ilaa ay maalinka maanta ah dawladda Soomaaliyeed waxay awood u weysay inay constitutional court ay samayso constitutional court ma jiro maxaa yeelay dawladdii meel lagaga dacwoodo ma jiro هس باجرت أنا حد الصوص صاروا لي يعني حكومة ين كقد دعونا ما هي حساسه كلاه يا لو قد دعوة ذا إن ريالتي يا لو قد دعوة ذا معناه ذو حيتهاي دولة دان كندا هذا شرعي بارتي كل حد جذبته أو حقوق هذا محكمة ذا تيك تاخد كده عن كده دولة الفدرال كانوا حيصدر سنة إن لو يهرد إذا يسود دفاع ذا لبدينا إقبل بعد أتيهن under the court يا كل حكم كلا دولة إن حقها يسوعلس لكن مدحda qaranka Soomaaliyeed ma rabaan in cid iyaga ka sareyso oo lagu dacweeyo ay yeeshaan markaan feer noqdana xukuumadan kaliya ma aha kuwii ka horeeyay saasi hayeen marka dabeecadda Soomaalida waxay tahay ana amiir oo sida Mareykanku ay yiraahdaan the buck stops with me cid aniga iga sareyso oo loo tigi kara ma jiro laakiin dastuurku wuxuu qorayaa waa laga sareeyaa of course dastuurku wuxuu qorayaa in shacabka Soomaaliyeed ay ka sareeyaan wax oo dhan laakiin cid maaragtay waxa tixgelinaysa marka haddii dastuurkii aan la raacin federalismkii la diiday federalism waxba ka hadlaysan xaqiiqda markaan soo raacno waxba ka hadlaysan oo la sixi karo haddii la diidan yahay Soomaalidana maadaama ay central authority ay barteen haddii la diidan yahay Axmed inuu madaxweyne noqdo anigana madaxweynayaasha aan rabo inaan noqdo war Axmed oo gobernatooraha oo dawlad goboleedyada noqdo dawlad goboleedka gobernatoorhoodii madax u noqo anigana madaxweyne aan ahaado oo hal madaxweyne ha jiro adigana noqo chief governor ama maaragtay magac kale loo sameeyo laakiin wax isdiidi kara ma laha baarasaabka Ontario iyo madaxweyne ay maxaa prime ministerka dawladda Canada inay safraan oo China wada aadaan kan Ontario-na oo danaha Ontario uu xadiir la soo galo kan federaalkana uu danaha federaalka China ay leedahay ma laha haddii ay jiraan shuruucna kala celinaya waxaad adiga u socoto iyo waxaan aniga u socdo haddiise sheekadu ay tahay هذا خيراتك وحوها إن الدولة الفدرالية أي دولتها جولات أي كهشيان إن خيراتك ذلك سقابك الواقع بسن لها لسمايو سأن اسكون عو إيمان لقى ما شقين ما دام أنا لقى شقين وح إيمان يمرك دبي يتقي أنا قال دبي ينتقي قربها لسكون نفتي مركا أرمها سو وأرمها لقى بحكرو هدي هجان كذي النظام كذي اللي ماده ودولة أي معرتي وقت بدن جلس ولا ليال قدو يقل قدود وما بهنا ما أنت دجال عصب إنه كدعه سوماليا مال كتها لو ما أنت أبهن إنه دجال هرلا كدعه مجره شخص سوماليا يعني إنه ما أنت أنت دجال بكدعه ماشاس أو دجال سوماليا سكير حدا كدعه إنه دعه أبسولد حق ما دولة فدرالك سوماليا وأنا كسر صارتها إذا بدأ فدرالك لو دري جذو لو دري وأنا كسر صارتها أو إذا بدأ سلاد يا شباب إن لدى قلمان عذاب الصوماليات والشباب عذاب أمد الصوماليات والشباب وقت إذا بدأ قارن كصوماليات وأنا جليان إن شباب لقأت هذا إيه ما إن دولة قبلتي ولا ما ركتي إن عنقبتي دولة قبلية دولة فدرالك وحلا ربا إن ميس هو ذا فريستانو دي بهشيسين يوذا تشي يوذا هذا ليس ميان
sida ay ugu fududahay inay Ethiopia iyo Kenya iyo Turkey iyo Imaaraadka ay wala hadlaan ha u fududaato in walaalkooda Soomaaliga ay hor fariistaan walaalayaal walwalka aan qabo walwalka ay Soomaalidu qabto maanta wuxuu yahay dawladda federaalka iyadoo 3 sano waqtigeedii u dhamaaday oo halkii sano u dambeeyay ay ku jirto ayay waxay u dhaqmaysaa inay 5 sano kala cusub ay haysato oo filkii inuu dhamaaday oo intermissionkii uu dhamaaday oo fiinihii uu soo dhaweeyay ma ka warqabto oo fiinihii goorma imaanaya doorashadii baarlamaanka waxay inay dhacdo in bisha October iyo November doorashadii madaxa qarankan waa inay dhacdo February sanadka soo socda ilaa iyo haddana barnaamijka axzaabta iyo barnaamijkii doorashooyinka wali mugdi baa ku jira dawladda federaalka lafteeda xisbi ay doorasho ku soo gasho maanta malaha waad maqashaan nabad iyo nolol xisbi maaha waa slogan waa slogan waa hal ku dhig waa haddii adigii madaxda ahaa oo rabay inaad soo noqoto aadan xisbi aad ku soo noqoto lahayn dabcan waxbaa ku qarsoon soo ma waxbaa ku qarsoon waxa u qarsoon maxay tahay waxa u qarsoon waxay tahay waqti kororsi iyo in la helo madal cusub oo ka kooban dawlad goboleedyo dawladda ay isku xulafo yihiin iyo xukuumadda inay isugu yimaadaan madal oo madashaas la yiraahdo waxay keentay talo hor leh oo cusub oo arrimaha isbedelka dalka looga talinayo waxay go'aan ku gaareen in maaragtay dalka lagu daro waqti lagu daro ama sidaan la sameeyo ma ogolaanayno in hal maalin lagu daro doorashada dalka waqtigeedii mana ogolaanayno in madal ay dad ay isku xulaf yihiin xukuumaddu ay ka taliso arrimaha isbedelka dalka waxaan u baahannahay iyadoo transparent ah ummadda Soomaaliyeed ay og tahay in hadda ay xukuumadda iyo dawladduba ay sheegaan qaabkii isbedelka uu ku dhici lahaa haddii ay rabaan inay soo laabtaanna ummadda Soomaaliyeed diyaar bay u tahay inay soo laabtaan laakiin waa inay wax qabadkeeda la yimaadaan xukuumaddu inay waqti geliso maaha inay miidiyaha iyo Facebooka iyo social mediaha ay kharash geliso oo shacabka Soomaaliyeed lagu mirqaamiyo iyagoonan xaafadihii Muqdisho aanan la isaga socon karin iyagoonan cisbitaaladii la tagi karin iyadoo iskuuladii ay xiran yihiin oo wafdiga imaanaya berito galabta loo sii xiraayo dariiqyada si ay wafdigaasi ay u yimaadaan oo dadka shaqooyinkoodii dugsiyadoodii danahoodii loo joojinayo leeyahay maanta magaalada meel la mara ma laha 21st century ilaah baa idinku dhaariye ummad aanan cisbitaal aadi karin ama iskuul aadi karin oo la leeyahay dariiqyada waa xiran yihiin sidee horumar lagu gaaraa sidee horumar lagu ummadda Soomaaliyeed markaan idin sheego waa caburan yihiin culaysay haysta 30 sano ay soo dagaalamayeen shaqo la'aan baa jirta baahsan nabadgelyo la'aan baa jirta yani xukuumadda iyo shacabka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta waa in shacabka Soomaaliyeed loo ogolaado inay isfurfuraan oo ay maaragtay ay helaan meel ay ku neebsadaan Muqdisho iyo gobolada meelo badan nabadgelyada dadku waxa ugu sii daran caburinta ay xukuumadda ku hayso shacabka marka waxaan isleeyahay Soomaaliya dagaal la sokeeyay soo martay Soomaaliya dhibaatooyin badan bay soo martay Soomaaliya dawlad walba xukuumadda ka dambeysay waxbay soo diyaarisay maaragtay horumarisay runtii waxa muhiim ah in la ogaado dastuurkan dad baa soo qoray xukuumadda soo diyaariyay nabadgelyada airportka magaalada furan maanta xukuumadda furay oo soo diyaariyay magaaladan caasimadda ee la joogo dad baa maaragtay isku furay madaxtooyada la degan yahay xukuumadda ka soo shaqeeyay oo dadkii haysta ka qaaday waxa soo dhan horumarka maanta la taagan yahay qayb bay ka yihiin waxa soo dhan waxay mudan yihiin jazaakumullahu khayran in la yiraahdo dawladaha soo dhan waxay mudan yihiin khayr Allah idin siiyo baashi meel baa soo gaarsiiseen annagana waa ka sii qaadanayna meel kale aan geynaa inay ahayd ma ogiye in gadaal loo noqdo maaha walaalayaal diaspora haddaan nahay mas-uul baana saaran waxaan u baahannahay in aan qabyaalada ka baxno walaalayaal qabyaaladii nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi dacuuha fa innahaa muntinun way uraysaa ka fogow waxaan idiin sheegayaa qabiilku meeluu ka bilowdo waa leeyahay meeluu ku dhammaado ma laha
adiga iyo aabaha iyo walaalaha iyo ilma adeerta baa ku diriraysaan maanta bal fiiri xildhibaannimada Soomaaliya ayaa isku haysta waxa isku haysta ilma adeertii isla dhalatay isku haysata oo xildhibaankii hadduu maqla caawa walaalka Axmed Mir Bootana magaalada yimid wuxuu isleeyahay booska arbuu ka qaadanaya marka waa inaan ka baxnaa 4.5 waa inaan u gudubnaa diversity waa inaan u gudubnaa unity waa inaan u gudubnaa dawlad wanaag waa inaan u gudubnaa qof alla qofkii wanaagsan ee howl noo qabanaya inaan ku taageerno walaalayaal waxaan isleeyahay rajadu maxuma dal qurxoon baan leenahay barafkan caawa meeshan ka jiro kama jiro dalkiina naacawda iyo haddaad tagto maaragtay hoteelada iyo magaalada haddaad tagto quruxdeeda waa yaabaysaa nabadgelyo xumaa ka jirta siyaasad xumaa ka jirta Soomaalidu waa isjeceshahay meel walba meeshii joogto waa soo raadsataa Soomaali qowmiyad ka fiican adduunka ma jirto markay timaado hospitality markay timaado is-ixtiraam markay timaado qurux markay timaado cunno cid nagu gaarta ma laha haddana dadku waxay leeyihiin war adigoo kale ku jira Soomaali adigoo kale ku jira Soomaali maxaa loo heshiin laayahay muwaafaqadii ayaa naga luntay muwaafaqadii wax kale noogama lubin qabyaaladii nooga luntay haddii aan rabno caruurteenna iyo mustaqbalkeena inaan soo ceshano walaalayaal aan qabyaalada ka baxno walaalayaal aan isku saacidno Soomaaliya inaan taageerno cid alla cidii xaqa wadata wanaaga wadata oo aad istiraahdaan alla ilaahay kan ama gabadhan waa wixii aan ugu gudbilayn xaaladda maanta lagu jiro laakiin hadday sheekadu qabyaalad naga noqoto waddankaas waxa yeelan doona Turki waxa yeelan doona Imaaraat waxa yeelan doona Ruush waxa yeelan doona Mareykan waxa soo dhan idama kala jecla absolutely Soomaali kala kama jecla annaga umba isnacab xukuumad waxaan u baahannahay nabada matasha ma aha mid xoog ku timid dadka qaar baa maanta waxay lahaayeen in waa guul in qoladaas laga raayay waa guul in awood lagu qaad war xukuumad kuma dhalato awood iyo camcamin iyo xabad baan ku qaadanaa kuma dhalato waxay ku dhalataa dib u heshiisiin iyo muwaafaqo iyo heshiis iyo raalinimo ku dhalataa markii la helo Soomaalidu waxay tiraahdaa markii ceelay heshiiso ayaa xooluhu biyo cabaan war ceelay aan heshiino war aan dawlad wada samaysano war haddii aan ogolaanay Canada inayna maamusho aan ogolaano qof Soomaali inuu maamulo war Hargeysa iyo Xamar iyo Kismaayo iyo kulli waa isu wada baahannahay maanta Nairobi haddaad tagto dhaqaalihii Soomaalida oo dhan maanta Nairobi yaalla qof walba qofku ka taajirsan Nairobi jooga oo maxaa lacagta halka u kaysatay halkaan nabad ku haystaa oo ma tagtid Beledweyne oo ma tagtid Kismaayo oo ma war maxaa tagaa meeshaas waa Liboobay halkaan nabad ku haystaa marka why aan anagu thriving economy u nahay Canada markaan joogno Kenya markaan joogno Dubai markaan joogno China markaan joogno laakiin markay dalka timaado aan u liidanaa walaalayaal waad mahadsantihiin runtii waxaan isleeyahay inaan rajo soo celiyaan rabaa hasa hadii wax badan oo rajo iima muuqdaan rajadu waxay iga muuqataa indhihiina inaad baaragtay aad isbedeshaan oo aad halkaan ka bilowdaan inaad iswalaashataan midowdaan Axmed walaalkeena Faisal Xasan wuxuu ku hadlayay Faisal anagu dhanbana matala wallahi Axmed ariga u lahaa qof Soomaaliya maanta oo xildhibaan ku ah ama wasiir ku ah anagoo dhan wuxuu nooyahay muraayadno yahay wasiirka Axmed Xuseen عربتي بقى هذا شيء إماراتك وحال يري ويلك صوماليا كل شيء سعودية أما كل شيء إماراتك كوين هذا ولي لا يا إنه أما سكول لكتو أما جامعات كبح أما وحصة ما يشتو ما حيل دولة ما أقله مركو قحوتي كنت هجي كندا أما كنت هجي مينيسوتا أيها وحين نقطة كونغرس مانتي ما يقول حوق بدنا الدولة الأمريكان كا أيها إلهان عمر نقطة شالنا هيد قحوتي هيد أحمد حسين ونقضي وزير كمارة إنه يعني وهذا من فضل ربه الباب قد إلهي ملك هذا حرم مال بكفره لكن وحلو بهاي والإلهان عمر ما آمن سنة إن تكون كونغرسمانتين ما آمن سنة أحمد حسين ولا كنا يهي وما قف قالوا هذا وكذا وشقي الله كان سولي قال أن بوس أنك قاد هذيك قاد ورفتاس فائدة نوع معها سومالي أنس ولا شنو سومالي أن مذونه سومالي أن ذكر كم مغنى أودي ذا ولا نه علمي ذا ولا نه أقونتي ذا ولا نه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله دكتور عبد النور شيخ محمد قدوميه هنا من قرن waxaan leeyahay waxa weeye
waxaa ugu daran markaa qofka marka aad taqaano oo wax aad jeclaan lahayd u socda aragto waad dareemi kartaan baan malaynaya qof aad si fiican u taqaano wuxuu galo wuxuu gudo aragti meel u socdo ama uu sheeko wax uu socdo ama hawl uu qabsanayo waad garan kartaa wax imaan kara marka horta ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu horta xilka uu ordaayo iyo xisbigiisu inay hana qaadaan asagana meel fiican gaaro